maxay saaxiib maxaa ku dhacay waa badna ku raagtay maxaa sameeyay walaalkayo saasa walaal seetayna alxamdulillah waan fiicanahay maxaa kugu dhacay aad la soo raagtayna tufaaxan iga qabo waa mid aad u macaan waad maasantahay walaal ma hagaagtayna wax yari dulqaaday sugada waqtigaaga qaada waayey eeg walaal intaan qiimaha iska jaran ay waa imisa ii sheeg bal waa imisa ay walaal balaad walaal ii soo 500 weeyaan ma 500 ba ma dhici karta maye maxaad la soo habsaantay adiguna dadun baa iska yara xumayda saa darteed baa ku soo yar raagay wax kale maaha mootada waxaad moodaa xogaa inay iska kharbaan yara tahay mootada waa iska yara duugo mar bay xataa ila dhacdaybo halkaa lugta iyo dhaawacyo yar bay soo gaadhay xitaa halkan wejiga mar bay soo gaadhay waan gartay laakiin ma adiga iska leh mootada walaal may walaal waan soo kireystay ma kaa dhabbaa maalin kasta maad soo kiraysataa markaa haddaad siiso xaqiiso kuna haddana wax kale ayuu dib u sii doonayaa waayana sidaas igu haddaa iskaba siiba mootadiisa dee markaasoo mooto kale un kiraysan maayo horeba saan kuugu sheegay walaal dulsaar ayaa mar walba lagaa doonayaa markaa maxaan sameeyaa ilaa shaqadaydii oo dhan ayaa mootadan ku xidhan soo maaha maalilaa kugu og waxaa kugu fiicneed mooto adigu aad leedahay ad iibsato ood ku shaqaysato si aad uga baxdo gacantan kale ood ku hoos jirto waxaa kugu fiicneed mooto adigu aad leedahay ilaahay baan ku dhaartay mararka qaar xitaa waxaanay soo saarinba kiradaan ku kireystay markaasaa weliba dayn laygu yeeshaa laakiinse dee irsaaqaddu gacanta ilaahay ayay ku jirtaa ma runtaaba markaasi weliba ii dheer tahay adeegii reerka hadday noqoto tamaandhadii saliiddii waxyaalahaas oo dhan arrimihii ciidda iyo dharkii hadday noqon lahayd yani wax walba ku diyaarsan maaha wallaahi inaanan xitaa 100 riyaal ku dhow u sii diyaarin gurigayga ilaahay abuurtay baan ku dhaartay maya wallaahi inaanan xitaa 100 riyaal ku dhow u sii diyaarin gurigayga ilaahay abuurtay baan ku dhaartay ilaahay carruurtaydoo dhan hayga qaada haddii aan been ku sheegay walaal ilaahay ha ku xafido insha allah biidnillaah laakiin ilaahay baa mar kasta khayr anigoo karaamadayda ilaalinaya marnaba bilaadan gacanta uma horsan ilaahay oo keliyaan arrinteeda u bandhigtay ilaahay baad u bandhigtay arrinkaaga liidkaaga xalaalana waad cunaysaa waxaan aad ii dhibtayna aan afurku si qaatee awal qiimihiisa imsaad igu tirinaa 500 iskaba hayso walaal waa caadi waa 5,000 walaalkay wallaahi may iska hayso may wallaahi waad haysanaysaa sabab dhardee waayo 500 waa intii tufaaxa ma garatay kulna waa intii aad soo socotay maxaa la isku yidhahdaa 500 soo maaha ma garatay baaqiga hadhaynada waa intii aad igu sii qaadi lahayd marka anigii adeegayga in baad ugu sii qaadaysaa in yar ii kaadi halkaasaan ka soo noqonayaa si aad ii yara qaaddo laa xawla walaa quwata illaa billaah mootooyinka la soo karaysanayaan waxaas ayay ku xun yihiin ay inakeen haddaba bismillaahi raxmaani raxiim start maxaa ku dhacayna wallaahi alcadiim waa miskiin maxaa helena ilaahay baan ku dhaartay qalbiga ayaan ka ooyey oo sababna xaalka adduunyada ayaa saa u galay maxaa helena see wax u dhacayna wuxuu ii sheegay inuu 2,000 riyaal ku soo karaystay mootadan haddana wuxuu ka faa'iiday iska daayay xitaa mootada ayaa laa xawla walaa quwata illaa billaah xaalad xun ayaa heshay wallaah maxaan samayn karnaa marka muwaadiniinta Yementu waa iska dhiban yihiin waa damqasho aad u xanuun kulul dadna waxay u damqanayaan muwaadinnimo guud soomaalina waxay isku qadqaadaysaa qabiil ilaahayo dadkayga ka dhig kuwa isku qalbi qabow oo isjeclaada kuna dagaaltama magaca Soomaaliyeed iyagoo weliba isku garabsanaya kana fogaada qabiilka iyo qurunka iyo kala fogeynta bulshada ilaahay walaalahayga Soomaaliyeed ee dhalinyarada ah ee haboobsan ilaahu soo hadee maxaan u samayn karnaa walaal waad ogtahay xaaladdan ku sugannahay maxaan qaban karnaa markaas wallaahi run ahaantii aad ayaan uga damqaday qalbiga dad badan oo siisoo kale ayaa jiro iska dhibaataysan ilaahay dhallinyaradeenna faraj khayr qabo u fur oo waxtaa wax ku cuna ma haysta miyaa wallaahi inaanu shilin haysan oo tan iyo saaka waxba mu helin miyaa waxba mu helin oo cid uu wax weydiista mu waayna wuxuu yidhi arrintayda ilaahay oo keliya ayaan u bandhigtay inuu wax yarun helo xitaa rajaynayay laakiinse ilaahay ayaa faraj u furi doonaa see micnaha adiga naftirkaagan waxba haysanbe 5,000 aad siisay ayaa 3,000 siiyay isaga labana waan la hadhay labadaas ma iska biyeysan doonaa kun waxaan siin doonaa kirada mootada kunka kalena anuun baa isticmaali doonaa allah kariim oo markaa walaal adigana ma wixii ilaahay ku siiyo
dadka dad wax ka siiso uu kaaga badinayaa. wallaahi waan jirdhacooday markii igu yidhi xataa suxuur waxaan ku siisto ma haysto. aad ayaan uga xumaaday. intii aan hayay ayaan wax ka siiyey suu isaguna suxuur u siisto. marka haddaba walaalkayga sharafta low kamarad ayaan duubayay adayga raalliya naga raalaho walaal. dhib ma laha, muxuu ahaa barnaamijkaad iga duubanayseen? runtii markaan arko anigu dad iga sii liita qalbiga ayaa xanuunaa. ma marar badan baad aragtaana? haa waan arkaa, laakiin mid ogsoonow qofkii ilaahay isku xidha ee shantiisa waqtinas tukada ilaahay ma dayacayo. meel aanu ka filayn ayuu ka irsaaqayaa. waa runta, meel aanu ka filayn ayuu ilaahay ka irsaaqayaa. marka walaal run ahaantii maan moodayn qof saa u qalbi jilicsan inaad tahay. iga raalaho walaal, ilintaadu wallahi way idhibaysaa. waa caadi walaal, dhib ma laha. ii sheeg walaal magacaana? maxamed yaxya waadi. maxamed yaxya waadi. maxamed wallahi waxaad tahay qof insaan oo wanaagsan. waxaad tahay qof adag oo la dagaaltamaya caqabadaha nolosha oo marnaba aan isdhiibin. mootadan aad arkaysaana waa mid duuga oo uu ku shaqaysto. alxamdulilah way shaqaynaysaa, balse laakiin waa mid iska duuga. inaan lahayd inaan iska yeesho anigu, laakiinse dad ayaa leh. anigu mar kasta waxaan ku riyoon jiray inaan mooto yeesho oo aan anugu leeyahay. waryada noloshaada taasina. haddaba barnaamijkiina ayaan hore u gelaynaa. su'aal ayaan ku weydiinayaa, ma garatayna? haddii aad su'aasha aad ka jawaabto waxaad helaysaa abaalmarin. haddii aad si saxa uga jawaabi weydo su'aashan ku weydiinayo, ma garanaysaa soo kaxintaad soo kaxaysay iyo tufaaxadii keentay qaar kalen kugu sii labalaabaya oo bilaasha. ilaahay bay caawin doonaa, inkastoona anugu wax saasaanan sii baran. insha allah waad ka jawaabi doontaa. jawaabi kari waay su'aasha. micnaha waxaad ku lawulaysaa inaad su'aashan aad ka jawaabi weydo. waa sidaa. waayo maxaad uga lawulaysaa? inay fursadu dhaafto ayaan ka baqayaa. ka waran haddii aad ku guulaysato lacag way ku anfacaysaa soo maaha? way anfacaysaa run ahaantii. ciyaalkayga ayaan ka farxin lahaa, waxaan u soo iibin lahaa dharkii ciid, wax kastay u baahiin ayaan waxbaba umaadayn miyaa markii hore? wallaahi inaanan waxba u hayn. 100 riyaalna ku dhaho ilaahay khalqay baan ku dhaartay. su'aashu waxay ku leedahay ii xusbal 5 suuradood oo ka mid ah qur'aanka kariimka. ima akhriyaysid laakiin magacyadoodu nii sheeg. alfaatixa, alfaataxa, alikhlaas, alikhlaas, annaas, annaas, alfalaq, alfalaq. midh baa ku hadhay annaba. annaba suurat albaqarana ku darso hadda iska dheh. suurat albaqara maadaa badiyey mise anaa badiyey? anaa badiyey. 50,000 oo riyaal ayaad ku guulaysatay. mahadsanid walaal, ilaahay ka abaalmariyo. adigaa mudan walaal, ilaahay ka abaalmariyo walaal. waan gartay. karamo mootada ii keen bal. waxay sii kaxaynaya walaalkeene. ku darso mootadan magacaaga ayaad ku qoraysaa, adigaana iska leh. ma ilaahay baa kugu og walaal? wallaahi adiga iska leh. ilaahay ku daayo walaal. sidoo kale kaleexadu ka leexo, adiga ayaa iska leh. wallaahi walaal mootadan aad arkayso weli cidna magaceeda kumaanan soo qorin. waxaanu ku talagalnay in asxaabteedu ku raacaan ood magacaaga ku soo qorto sidaan aad ku yeelato. wallaahi waad u qalantaa mootadan barooga. tanna waxaad iska celinaysaa qofkii iska lahaa. ilaahay ka abaalmariyo walaal. wallaahi run ahaantii ma garanayo waxaan ku dhaho. aad ayaan kaaga mahad celinayaa, waan kuu ducaynaya walaal. wax khayr qabay lagaa ku siiyo.